الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الوزراء حمزة عبد برre، نائب رئيس الوزراء، labada gole shacab, gudoomiyaha gobolka banaadir, raalli ahaada haddaan wax ka qaldamo, dhammaan mas-uuliyiinta qaranka, waa martii sharafta ka soo qayb galeen kulankan. waxaan idin soo jeedinayaa islaanta ya allah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وبعد السلام waxaa sharaf weyn inoo ah, waxaa farxad weyn inoo ah, waxaa ilaahay ayaan ku xamdinaynaa kulankan ballaaran oo halkan ay xaadir ku yihiin dhammaan Soomaaliya, beelaheedii ay shanta Soomaaliya. waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay midnimadayna xoojiyo, mid waanahay ilaahay midnimadayna xoojiyo. haddaan midnimo jirin nabad ma jiro, haddaan nabad jirin barwaaqo ma jiro. alxamdulilah, dhulkeena kheyraad ayaa ka buuxa, betrool, macdan, xoolo, kaluun, wax walba. waxaa xaqiiqa dowladdan, xukuumaddan cusub, haddii ilaahay tawfiiqa waafajiyo, muddo 4 sanawaad in aan betroolkeena dhulka aan soo saarayno. laakiin waxay ku xiran tahay shacbiga. waxaan u soo jeedinayaa dhammaan siyaasiyiinta, dhalinyarada siyaasiyiinta oo hadda midlaya xukuumadda in ay midoobaan. waxaan u soo jeedinayaa dhaqanka dhalinyarada inay wacdi geliyaan, ayna walba waxyaabaha uu samaynayo inay noqoto wax khayr leh, waddanka u roon, dalka u roon, dadka u roon. waxaan u soo jeedinayaa dhaqankaas culamaa u diinka, maasha allah 24 saaca waxay wacyi ku hayaan masaajidaha, goob walba. anigoo ah kana mid ah kuna haduu hayo magaca beesha balweynta qoomiyadda banaadiriga. waxaan dowladdan, xukuumaddan xamza cabdi barre, waxaan u soo jeedinayaa tahniyad, waxaan u soo jeedinayaa taageero. waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay nooga dhigo dowladdii muddo 30 sano ayaa dowlad soo socday, ilaa 3-4 dowladood. waxaan ilaahay ka rajaynayaa laakiin dowladdani in ilaahay noogu dhigo tii ugu dambaysay oo aan ku gaaraynin barwaaqo, oo axzaab siyaasi ah oo cadaalad Soomaaliyadu ay ku shaqaynayaan in ilaahay noo keeno. anigu warkayga waa badan tahay, laakiin waa dad badan baa ii sugayaa, raalli ahaada. waxaan wax ku dirayaa 4.5 xukuumadda cusub in ay xuquuqoodii dhowrto. xilka ma aha keliya wasiir, xildhibaan keliya ma aha. xilka waa badan yihiin. mudiir lacaam ayaa jira, safiir ayaa jira, mudiir qismi ayaa jira. ciidamada in la dhowro xuquuqa, in la dhowro cadaalad. haddii cadaalad la helo, waxaan shaki lahayn masiirka ummadda Soomaaliyeed inay hor u sii soconayso. laakiin haddii la waayo cadaalad, wax soconaayo ma jiro. xukuumadda cusub waxaan ka rajaynayaa, waxaana ka codsanayaa, waxaan ugu talinayaa in ay cadaalad ku dadaalaan, in gibil cad iyo gibil madow in lagala saaray dadka, jarir iyo jarax in lagala saarin. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullah.